soo dhawow channelkayga Faarax Fawzi. Channelkan waxaad kaga bogan doontaa cashiro dhiirigelin ah iyo sidoo kale cashiro muhiim u ah noloshaada. Soo dhawow, subscribe star. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Milicsiga Waayihii Hore oo aad alaaba ka daawataan channelka Faarax Fawzi. isbuucan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa asalka Soomaalida iyo taariikhda dalka kahor 1960kii. marka laga hadlayo asalka Soomaalida waa arrin muran badan isla markaana laga qabo aragtiyo kala duwan. inta badan aragtiyadan waxaa laga soo qaatay qoraallo ay sameeyeen dad aan Soomaali ahayn. haddaba waxaan halkan ku soo koobayaa aragtiyo kala duwan oo laga qabo arrintan. aragtida koowaad waxa ay sheegaysaa in Soomaalidu tahay dadka loo yaqaan Kushaytiga ama Kushaytic people oo ku nool qaaradda Afrika, gaar ahaan geeska Afrika. dadka fikirkan qaba waxa ay daliishadaan luqadda aan ku hadalno, taas oo ka tirsan luqadaha Kushaytiga ah oo ay ku hadlaan dadka Afrika ku nool inteeda badan. waxa kale oo daliil u ah bay leeyihiin muuqaalka iyo qaab dhismeedka dadka Soomaalida ah, midabka, maqaarka iyo halka ay dadka Soomaalidu degan yihiin oo ah taariikh ahaan meel dadka Afrikaanka ah weligoodba deganaayeen kumanaan sano ka hor dhalashada Nabi Ciise. aragtida labaad waxa ay sharaxaysaa in dadka Soomaalidu yihiin Carab asal ahaan, laakiin ay u soo haajireen xilli hore geeska Afrika markaana la falgaleen Afrikaankii halkaa ku noolaa. dadka aragtidan qaba waxa ay daliil ka dhigteen dhaqanka, diinta iyo luqadda iyo taariikh ay qoreen Carabtii hore. aragtidan ayaa waxa ay leedahay in dadka Soomaalidu asal ahaan ku hadli jireen luqadda Carabiga, laakiin iyaga oo dhex degan dad aan Carab ahayn darteed ay luqadoodii si tartiib ah isu bedeshay oo waxa ay noqotay luqad isku dhaf ah oo ka kooban af Xabashi, af Carabi, Sawaaxili iyo Carabi dhawaaqiisa la dhalangadiyay. aragtida saddexaad ayaa waxa ay qabtaa in dadka Soomaalidu ay ka kooban yihiin 3 jinsiyadood oo kala ah Carab, Xaamiyiin iyo Zinji ama Jareer, waana taas aragtida saxda u dhow sida dad badani ay qabaan. waxaa la leeyahay odayga Soomaali waxa uu ka yimid dalka Yemen, geeska Afrika ayuu yimid, waxa uuna guursaday gabar xaamiyad ah, waxa ayna dhashay 9 ilmo Soomaali ah. Soomaali waa boqorkii ka talin jiray dhulka Soomaalida 2500 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. waa odayga ay ku abtirsadaan qowmiyadaha Soomaali oo ku nool bariga Afrika, waqooyiga iyo bartamaha Afrika. Soomaali wuxuu dhalay 9 wiil oo kala bah ah: Gardheere Soomaali, Irir Soomaali, Mayle Soomaali, Maqaara Soomaali, Xamara Soomaali, Xariir Soomaali iyo Yaabuur Soomaali. Gardheere Soomaali waa curadka Soomaali, waxaana ka farcamay oo uu dhalay Garjanta Gardheere, Riyaale Garjante, Mataane Riyaale oo isna dhalay Saransoor Mataan. ilma Saransoor waa 4 oo kala ah: Gaaljecel Saransoor, Dagoodye Saransoor, Ciise Saransoor iyo Masare Saransoor. Irir Soomaali oo ay ka soo joodaan Dir iyo Hawiye, Mayle Soomaali oo ka soo farcameen beesha Xawaadle, Xamara Soomaali oo ay ka soo joodaan beelaha reer xamarka ah sida Gudmanaha, Durqabaha, Gaameedlaha, Shaanshiyaha, Abkarow, reer Sheekh iyo reer Fiqi. si kastaba aragtida ha u kala duwanaato ee dadka Soomaalidu waa dad soo jireen ah oo geyiga ay degan yihiin wax badan ku noolaa, lehna taariikh fog oo u laabanaysa Nabi Ciise ka hor. qaab dhismeedkooduna waxa uu ahaa qaab qabiil, ilaa haddana qaab qabiil ayay u dhisan yihiin, xitaa dowladnimadoodu waa ay ku dhisan tahay. muuqaal ahaan Soomaalidu waxay u dhowdahay Afrikaan, laakiin dhaqan ahaan iyo diin ahaan waa dad Carab ah. daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena isbuucan. isbuuca xiga hadduu Eebbe inoo ogolaado waxaan idiin soo gudbin doonaa maamuladii soo maray Soomaaliya. intaan barnaamijkaas ku kulmi doona daawadayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.